meeshan waa aad u jeedaan waa goolashii iyo meeshii la fadhiisanayay tababaraha iyo ama ay fadhiisanayeen vaarka xataa vaarka ayaa la keenaya videoga vaarka ayaa la keenaya aragtan gooshan quruxda badan meesha la eg tahay waxaan idinkala soo hadlayaa caasimadda waddanka Soomaaliya magaalada Muqdisho garoonka Stadi Muqdisho caanka ah oo ku yaala waqooyiga caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho xaafadda Yakshiid garoonkan taariikh aad u dheer ayuu leeyahay ugu horeyn dawladda waxay dhulkan bixisay 1974 design-ka ayaa socday bilowgii 76 ayaa garoonkan dhismihiisa la bilaabay isagoo dhowr sano kadib la furay 1978 ayaa waxaa lagu furay ciyaar Soomaaliya iyo China dhex martay tabcan waxaa dhisay waddanka China ayaa dhisay garoonkan wuxuu ahaan jiray garoomada ugu waaweyn ee Afrika ku yaala waagaas dad aad u badan oo khubaro ah oo arrimaha isboortiga Soomaaliya ka shaqeeya ayaan ka wareystay waxaa la yiri marka uu free seat u yahay oo qaabkan uu yahay ilaa iyo wuxuu qaadaa 35 ilaa iyo 42 kun oo qofood ayaa gali karta markii kuraas la dhigana waxaa dhici karta in garoonkan uu qaado ilaa 35 kun oo qof uu qaado laakiin haddii la isla ag fadhiisto way ka sii badnaanaysaa oo la isku dhawaado aan kuraas la dhigin garoonka dayactir aad u weyn ayaa ka socda dadka intooda badan way xasuustaan sanadadii hore markay arkaan Amazon taankiyadoodii halkan yaala maantana waad u jeedaa isbeddelkan xawaaraha leh ee garoonkan quruxda badan ee ku yaala caasimadda Soomaaliya dhankan iminkan aan joogo waa dhanka VAB-da oo taqaanaan dadkii reer Muqdisho waagii hore iyo aad u yaqaana meeshan dhankaas iga soo horjeedana Katanga ayaa la yiraahdaa ama qoraxda galbihii marka ciyaaruhu ay bilowdaan waxaad arkaysaa saacadii oo mar dhow imaanaysa idinkaga sheekayn doono nalalkii halkana iyo maaragtay wax runtii qof walba oo Soomaaliya ku farxay horumarka tabcan dawladda Soomaaliya dawladii hore dawladda hadda wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada isboortiga xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa maaragtay xoog weyn geliyay in garoonkan shaqadiisa way soo idlaanaysaa saacadii iyo nalkii iyo waxa haray waxyaabo yar yar in lagu sameeyo runtii annagu waxaan aragnaa oo kaliya in garoon saan u eg laakiin waqtiga la geliyo iyo lacagta gasha waa maaragtay mid aad iyo aad cajiib u ah marka waxaan rabaa dadka asxaabta in ay ila qaybsadaan waxaa la dhigay caws oo sida gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab uu sheegay 10 sano garanti ah oo maartay qofkii sameeyay oo si bilaash ah ku sameeynayo runtii haddii halkan sidan intan kaamirada aan dhulka ugu dhaweysaan iraahdo waa dareemi kartaa quruxda iyo qaayaha weyn ee garoonkan uu leeyahay oo weli shaqadu ay ka socoto waxaad arkaysaan meeshii benchiga ahaa ee la fadhiisan jiray garoomada adduunka ay lahaayeen waxaad arkaysaa goolashii fara badan oo halkan lagu diyaariyay waxaad arkaysaa VAB-dii dhankan ah oo aad iyo aad loo qurxiyay meel walba calanka Soomaaliya ayaa saan u yaala runtii waxaan doonayaa angles kala duwan in aan idinka tuso oo aragtaan saacadii taageerayaashii kala duwanaa meelaha kala fadhiisan jireen meelaha laga soo gali jiray xogaa dabayl ayaa jirta garoon gudihiisa waa ka cod daaranaya laakiin waxaan in tusayaa space-ka ama baaxadda garoonka intuu yahay garoonkan oo ahaa garoon isla markaa lagu ordi karo marka sida loo habeeyay oo wax walba looga sameeyay waad arkaysaa marka waxaan ag tagayaa dabayl yar ayaa jirta calanka ka dareemaysa marka waan ka cod daaranaya
qaabka structure-ka ay u sameeyeen oo ujeedaa ilaahay halkan meesha xalanka u yaallo ah meesha koornada laga soo turo ku egyahay iyo inta ka dambaysana si fiican u eeg marka haddii halkan aan istaago waad ujeedaa jay ayaa la dhigay hoos waxaa la dhigay caag ama rubbers ayaa la dhigay haddana mid kale ayaa lasii dhigayaa la yidhi waxaa kaloo cajiib ah astaanta sida loo dhigay waxaad ku arkaysaan xariiqimaha diilmaha loo dhigay marka garoonkan oo kale Soomaaliya kuma yaalo waan aragnay kuwa kaarbad la dhigay oo yar laakiin stylekan iyo qaabkan loo dhigay gabi ahaan waa ka duwan yahay kuwii horaan u aragnay marka garoonka inta ayuu ku dhamaanayaa markuu inta ku dhamaaday intaan ilaa intaas dambe waa meelaha atleetikada ay ku ordaan waa meelaha lagu aalmintay wax lagu sameeyo goolkana markii la suro goolasha xagga yaalay dhowr gool ayaan arkay waxaan arkay 4 gool oo kala duwan dhanka kalena waxa yaala kuwa kale ayaa yaala marka waxaad arkaysaan shaqadu inay socoto dhulkan oo dhanna inta hartay intaan la furin saacada waxa laga dhigay insan loo nadiifiyay sida ay jirtay waa taqaanaan marka hal mar haddii aan sidaan ugu wareegsado ama aan sidaan ugu wareego waad arkaysaan qaabka garoonka uu yahay gabi ahaantiisa iyo sidoo isbedelka weyn uu u sameeyay marka eeg haddii saan loo eego marka wuxuu ku qurux badnaan lahaa drone in ay dusha ka qabato marka haddii 360 degrees aan ugu wareego sidaan ayuu ahaanayaa meelihii laga soo geli jiray qaar baa shoot kaga soo boodi jiray laakiin hadda derbi ayaa banaanka loogu dhisay garoomo kalena way dhisayaan oo meesha aan ku aragnay marka cayaarihii 79kii lagu qabtay cayaaraha carabta lagu qabtay ayaa aad u soo caanbixiyey garoonkan stadium Muqdisho marka sida ay sheegeen maamulka sare ee xiriirka insha Allah shaqada inta badan way dhamaatay waana la furayaa waqti dhow waxay ku xiran tahay hadda situationka adduunka suu yahay xilligan aan barnaamij sameeyay coronavirus ayaa adduunka oo dhan maaragtay wuxuu ku hayaa wax aad u xun ayuu ku hayaa awgeed wadankan wali ilaahayna ma keenay ma soo gaarisa awgeeda waqti dhow uu furmaya waa kan meeshii loogu talagalay marka waxaan idin sheegayaa dadka qurbaha ku nool ee sportiga aad u xiiseeya garoonka iska dhigmahan kaarbet jay ayaa hoos yaala u jeeda meesha garoonka oo dhankan ayaa ag yaala haddana mid kalena waa la sii dhigayaa aad u jeedan jayga sidana marka runtii dowladda Soomaaliya wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waxay sameeyeen shaqo aad u weyn ay qaranka u qabteen qaasatan Cabdiqani Saciid Carab oo 20 sano ugu dambeeyay effort aad u weyn ama juhdi aad u weyn geliyay in maaragtay sportiga Soomaaliya uu soo laabto marka dadka qurba joogta ah ee doonaya mar walba inay ka qayb galaan horumarka wadanka ka socda waxa looga baahan yahay in ay gacan siiyaan heelay hoob ay siiyaan isla markaana dawladda Soomaaliya waxa looga baahan yahay in sportiga iyo fanka dhalinyarada Soomaaliyeed aad ayay u jecel yihiin fanka iyo sportiga marka fanka sportiga haddii la sii kordhiyo dhalinyarada aad ayaa loo mashquulin lahaa dhalinyarada maaragtay waxa loo sameyn lahaa wax ay waqtigooda ku qataan Soomaalina sportiga qaasatan kubadda cagta iyo kolayga iyo orodada meesha ugu badan ee lagu jecel yahay tahay garoonka oo la dhihi jiray waxa la shidayaa halkii ka dega way koronto dab ayuu waday marka dad yar ay xasuusnaan kara waxa kale dadkan xasuusinayaa in cayaaraha intaysan bilaaban waayo dhankan yaaqshiid oo garoonka ku yaalo xaafadaha kale ku dhagan sida Wardhiigley xaafada ku dhagan Halwadaag xaafada ku dhagan Hodan waxay ahaan jirtay mid ah in codadka laga maqlo halkan oo ay kamid tahay laba cod oo muhiim ah ay ahaayeen heestii Haradigeed ee Xasan Aadan Samatar iyo dhalinyaro intaan ahay Ilaahay naxariistay Maxamed Suleyman sida awgeed dad badan ayaa xasnaan doona isbedelka ka dhacay waagaas ku dhacay wadanka ilaa iyo xilligan la joogo marka mar dhow insha Allah waxaan isku dayay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo aan isla joogno oo iminka haddii aad eegtaan wuxuu fadhiyaa dhanka VIP-da oo aan isla soconay in warays yar aan ka qaado oo maaragtay uu ugu sheegayo isbedelka ka dhacay garoonkan caanka ah stadium Muqdisho loogu magac daray magacaas ayaa caan ah magacaas ayaa la doonayay in loo isticmaalo marka furitaanka kulli dad badan oo Soomaali ah legends ayaa ka soo qayb gali doona
oo lagu casuumi doono wafdi aad u badan ayaa imaan doona dad dhalinyaro kubadda cagta kaliya ma ahan qof walbo sport ayaa imaanaya wafdi aad u far badan dhalinyaro ah oo reer UK ah London ah Canada ah Sweden ah marka anaga waxaan soo hogaaminay hadduu Ilaahay yiraahdo gaaska sportiga UK iyo Europe daayir xabiib madaxay waa u jeedaa daayir xabiib garoonkii afariisan jirtay garoonkii aad ku baashaali jirtay insha Allah maalinta furitaankaas xariga inaad ka jirta ayaa garoonkan oo baaxadiisa sidan u weyn oo ahaa waagii hore garoomada Afrika ugu quruxda badan ahaa uu soo laabtay marka waxaan aadayaa dhankan garoonka ayaan saan u dhexmarayaa si qof walba uu ila qaybsado quruxda iyo qaayaha garoonkan weyn ee Stadium Muqdisho oo aad aragtaan haddii sawirada aad eegtaan dhowr arkaysan dhankas kale meeshii laga shiday dabka laga shiday aad arkaysan dab shidkii ka ahaan jiray marka insha Allah Olimbikada waan ku qaban doonaa meesha Ilaahay haduu yiraahdo hadaan nool nahay ciyaaraha bariga ee bartamaha Afrika oo imaan doonaan marka waxa kale oo banaanka ku yaala hoteelkii caanka ahaa waxaan mar walba ku soo xasuusanaynaa maanta hadalkiisa aan haynay Cabdiqaadir Soomari Ilaahay u naxariistay oo ah halwadeenadii meeshaas aadka loogu yaqaanay dad badan ayaa lagu xasuustaa garoonkan oo waqti soo galay ka soo shaqeeyay dadkii hore ah dadkii reer Muqdisho hore ah marka dhalinyarada Soomaaliyeed jiilka cusub ee Soomaaliyeed mar walba wadankeena ku faana